السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت بدن فرحت بانيدين رجينا يا نور القروح بدن وسؤاله أي نكتشواب تشرني برشاد وين سو ويدين شرتين نمكن هذا نقرأ الكيس صوني معنا وحولي هاي هوين يبان قبا هوين إذا سو حيقول ترى هذا وح الله لا يوحات كفي عن تهي ما شرتو جوجلكم ما في عنيد oo shaqo kuma fiicnid oo dabeecad kuma fiicnid oo dhaqan kuma fiicnid oo diin kuma fiicnid wax allaalay waxaad ku fiicantay ma jirto sababaan ku sii eegtaana ma jirto laakiin kaliya ilaahay u badbuuna kala siiyay ubadkayga inaan aabahood aan dabada u saaro ayuun ban diidaya dibtay haysataa anigu qof shaqeeyo ma yihi buu yiri isla markaana ma yihi qof reerkiisa dayaca laakiin xaaskaygu markasta hadalada noocaas ay igu tiraahda haddii arinta noocan ay igu soo laalaabatay muddo badanna waxaan go'aan ku gaadhay inaan ka tago qoftan dumara waxaan doonayaa buu yiri inaan sameeyo inaan xaas kala guursado laakiin xaaska kale guursanayo awood ahaan dhinaca raganimada ma fiicni oo waan istareemaya nin xaaslaana waan ahaa arintaas qaabka aan isku xoojin karo ee haweeneyda aan uga guuleysan karo labaad ayaan doonayaa buu inadii soo tilmaamtaan aad u mahadsan yahay marka koobaad su'aasha xagga hore xaaskiisu waxa ay soo taxayso hadii uu aanu ku fiicnayn de haweeneydu inay saa ku canaanato waa mid ay xaq ugu leedahay qof aan waxba ku wanaagsanayn وأن دين عباكو في عناية سبب الله إلى عشرة أما سبب الله سي هايستا ما بجرتبا بركا هورتا أدوغو انتان الحاس كلا قارين نصيب ترضا إن هايستا وريركا يواليدا اسكا عيا وحاويا نيكي ناكتبا يوضاكو ضياعانتاي دين عكاستا مسؤولية دي أي كاكا ضياعانتاي كوكوشي أي كاكا ضياعانتاي دغاليه أي كاكا ضياعانتاي هدي أترادا هدنا ناكرا سي دونانايا هو غلط كصح كوريغاغا هوري هايسو حاسكاغا هوري قنعي مسؤوليته hore qaan dabeecadaada iyo waxyaabaha ay ka cabanayso u daji oo qof furfuran oo inta badan qalbi ahaan iyo jir ahaan iyo maskax ahaan ba u soo jeedan noqo inaad shaqaysatana waa mid muhiim ah haweeneydu hadii aanu ninku shaqaysan sabab ay kula sii joogtaa ma jirto haweeneydu xataa hadaa sariirta ku fiicantay maaha xal u noqon mayso marka fadlan inta reer kale raadin lahayd kugula talin mayno qaabka aad xaas kale aad kugu nafaqayn lahayd qaabkii xaas kale aad markaas horta xaaskaagan mas'uuliyadii hadhowto way badanaysaa dambi baad galaysaa oo iyadii baad dulmiyaysaa marka horta iyada qanci oo guriga hore hadii aad marka hore waa ku fashilantay guriga labaadna waad ku fashilmaysaa gurigaaga hore hagaajiso intaas aynu kula talinaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.